بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيق الله النوافجي إن شاء الله تعالى ودرسي إني أفراد محمد كدا اللهم صل على محمد سفوين كان نك الرجال جربه وأيضا مركو أبديهين دور الشذا نك الرجال أي كربان أنتي إلى تطبيق تنصفه أيام سأروري على كل حال وعقلي هي علمك إلهي جل وعلا يسي وحير ayaan intaas aan insha Allah iska barakaysteyn marka waxaan idin insha Allah ta'ala hadaan ku soo yar noqono duruusteeni maanta waa darsigii 7aad iyo darsigii 8aad ala kulli xaal aan dib yar noqono ninka wax laga rabaa hadii laga helayo ay ka helayso qofta dumarka ilaahay absidiisa oo xuquuqdeeda la dhisa ku dhisan khayr oo dadka la jecel yahay nin maxaan ku leeyahay aad iyo aad u ixtiraam badan nin kaftan badan oo ciyaar badan oo loo baahan yahay اللهم صل على محمد نين دغيسي وعن يعني قد قيبت شناد او maxaan ku leeyahay dageysi ugu fiican nin maxaan ku leeyahay aad iyo aad u foojigan arimaha reerka ugu foojigan maanta walaalayaal tawfiiq Allah na waafajiyo waxaan rabnaa insha Allah ta'ala ninka la rabo waxa weey ee loo baahan yahay waa ninka ay ku jirto dareen aabanimo oo og waxa ka socda guriga oo og waxa ilmuhu u baahan yihiin oo og wuxuu reerku u baahan yahay oo og xaaladda mar walba oo la socda talaabo la socda waxa looga leeyahay markuu qofka ninka ragga u yimaado waa mas'uuliyadii ka soo hadalnay qofkan waa lagu soo wareejiyay arrin weyn baa lagu soo wareejiyay arrinkaasina ay ka iman karto natiijooyin badan baa ka iman kara natiijooyin wanaagsan ayuu qof walba markuu guursado nin walba markuu guursado rajeynay natiijooyinkaas oo u baahan yahay in uu xidhxidho maxaa laga rabaa markaas sifooyin inuu lahaado khibrad aabanimo skills talent inuu lahaado maxaa looga rabaa waxa weey mar alla markuu soo galo horta midda ugu horeysa in maskaxdiisa ay ku jirto inuu ilaahay jalla wa ala uu caruur siiyay aqligiisa mar walba inay ku jirto in ilaahay jalla wa ala uu ka dhigay aabo maalintii loogu bishaareeyay ee ilaahay jalla wa ala keenay ilaahay subhanahu wa ta'ala durriya siiyay maalintii kadib waxa weey darajadu ilaa kullu marka waxaan raadaan dadkan laba qof isku darayo ee guurka arimaha aan u dhameeyo waxaan ku yiraahdaa wariyaha khayr Allah ku siiyo darajadii aad ku jirtay wiilashaas asxaabtaay oo dhan imika darajada ilaahay kugu daray maxuu ilaahay kugu daray wuxuu ilaahay kugu daray xaas baa ilaahay ku siiyay imika wixii ka dambeeyay waxa tahay nin oday ah oo xaas leh reer leh wiilashaas ku mid batiin waa darajadaas ayaad darajo ilaahay ku siiyay oo ka sareyso kadib waxa imanaysa darajad ka sii sareyso oo ilaahay jalla wa ala hadii ilaahay ku siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wiil walba oo guursaday nin walba oo guursaday inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad khayr qabta Allah na siiyo dhamaanteen maxaa markaas darajadaas uu dhaafay darajo wuxuu galay la yiraahdo aabanimo waa loo bishaaray marka waxa weeye fadhiga ka kaco waxa weeye halkii uu ma taagnid imika waxa ku soo korodhay laba arimood oo waxa ku soo korodhay reerkii oo maamulkiisa ilaahay ku gacanta ku galiyo oo maalintii aad keentay reerka aad ballan qaaday oo tiri waxaan diyaar u ahay inaan inantiina antu soo kalgacayl antu soo naxariis antu soo daryeel antu soo ixtiraam antu soo xiriir wanaagsan antu soo imikana waxa ku dhashay ilaahay jalla wa ala uu ku siiyay waxa laga rabo waxa weey inaad leedahay dareen aabanimo dareenka aabanimo inuu mar walba uu ku qaado markii lagu siiyay darajadaas aad kartay darajadii waxa waa darajo ka sareysa waxa weey midan imika mas'uuliyadaadu way badatay soo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi bulay allahumma lakal hamd ilaahayna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nin walba waa raaci raciyadii imika waxa ku korodhay raciyadii waxa ku korodhay ee ahayd ilaahay jalla wa ala inuu caruur ku siiyay marka waxa laga rabaa ama aniga la iga rabaa inaan imikadan indhaha si fiican furo dhagaha si fiican furo oo adana markan imika ka dambaysa inaan noqdo inaan lahaado dareen aabanimo dareenka aabanimada waxa weeye inaan ku socdo oo raado mar alla markii aan ka maqanahayna inaan soo wacan raado abaayo macaantooy xaalkii ilmiheenu soo yahay xagee joogan
miyay qadayeen sida ay hooyada ugu fikiraysa leedahay mar alla markay soo gasho ay leedahay hooyada ilmaha ay leedahay ilmihii may qadayn hooyo maad cunteen hooyo maad cabteen ayaa wiilkana adigana adigana nalaga rabaa inaan nidhaano aabbo sidee tahay maanta ma cuntay maxaad cuntay aabbo maxaad soo dhigatay maxaad yeeshay sideed yeeshay maxaad ciyaartii aad la timaadid ood soo gashid ood la ciyaartid ood wareysatid ood la fadhiisatid maanta zamankan aan ku jirno walaalayaal zamankii askarta maaha waalidiinteenna ilaahay khayr siiye wayna soo tarbiyeen wayna soo dadaan laakiin kayfiyada ay ku noolaayeen kayfiyadu waxay ahayd askarnimo waryaa kaale fadhiiso waryaa ma cuntay waryaa soco waryaa orseexo no way imikada zamankan aan ku jirno walaalayaal khusuusan dadkeena waddanka jooga iyo kuwa qarbaha jooga gebigeenba waxaan u baahannahay inaan ku dhaqanno nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi noloshiisii tarbiyada iyo alla baraysada anas radiallahu tacaala canhu ardaahu markuu ka sheekeynaya nabigeena suban salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi allahu akbar wuxuu yidhi nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa masastu dibaajan walaa xariinan alyanu min kafi rasuulillahi marka gacanta nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ku leeyahay waxay ka jilicsanayd wax ka jilicsan diibaaj iyo xariir maan tijaabin buu yidhi ilaa nabigeena suban salawaatu rabbi wasalaamu calayh gacantiisu aad iyo aad ba u jilicsanay wamaa shamamtu weligay ma ursan buu yidhi lanna waxa u baahan tahay ilmahaaga mar walba inaad qaadid adigoo cadirkii qaba nabigeena suban salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa cadirku wuxuu ahaa wuxuu ugu jeclaabay ka mid ahay saddexda ugu jecelyahay cadirka iyo dumarka iyo salaada waxa weeye masatu wuu tusayaa nabigu calayhi markuu qaadaya ilmaha oo halkaa shafka saaraya wuxuu tusayaa in udgoon yahay inaad udgoon tahay adigoo udgoon sida aad jeceshahay dadku inay ku arkaan aad udgoon tahay ilmahaaguna ay ku arkaan reerkaagu ku arkaan maxaa ka mid ah sunnihii nabiga calayhi salaatu salaam waxaa ka mid ah waxay tiri caaisha radiallahu tacaala canha wardaha mar alla markuu ilbaabkaa soo gelayo ilbaabka uu soo dhaafayo wuxuu ku horreyn jiray tallaabo markuu intuuna soo qaadin buu waxay tiri siwaak wuxuu qaadi jiray caday wuu cadayn jiray yani macna wuu cadayn jiro waxa weeye wuxuu rabaa inuu afkiisa inuu wax maxaa ku leedahay aanan ka soo urin wax ur badan reerkiisiiba ilmahiisiibu ku dhunkanaya reerkiisiibu ku dhunkanaya laana yayna dhibaato u keenin bahay allahumma lak alhamd maxaanu ka baranaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam fiiri askari muu ahayn fiiri waxa ka nooga muuqato halkan maxaa la yidhahdaa ninka la yidhaahdo anas radiallahu tacaala canhu ardaahu لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نبينا صوبان صلوات ربي وسلامه عليه أنا خدمة يبيد 10 سنوات 8 سنوات ما قال لي بيد ولي يقوم أرني سيدي أسكرتي ولا محاول حاول سميس لشيء فعلته وحن أنا قلت سميي وأركيانو سميني يقوم أرني وريا محاول حاول سميس وحن سمينا ويمو أرني بيد النبي عليه السلام محاول سمي ويدي فأنت هنقول جوكته وحن ربنا إنه النقضه والد نما صفة والد نما إنه كجرتوني كرجع إنه يهاي قبل والبو يتمنين يسا قبل مرة هدي لهاي كان يقولي واحد جعشة إنه هو يوم التشو مركا وين هالشادين عي كلام أبا أو مركو صاق لسه يدور يسنس هو يوحما عنتي أبا وحما عنتي أبا ما فريستي أبا سدوح حالك أقومانتا أبا سدي هاي أبا محن كوقبتا أبا محن كوسميا كجرت والد نما صفة سديدات توفيق الله نوافجيه إنه النقطة داعد وحول بو سمينا يوم إخلاص إنه ليمات وحول سمينا يا وحوي ولا وحوي نبينا سبحانه صلوات ربي وسلامه عليه وحوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نوم والبراعي بكي هاي إلهي جل وعلا يوكله ارتقيا إلهي با ورا صدر marka ayuu sameeyeen damba ay ugu jirtay ayaamahan iska jooga iskala joogo aan soo kolkoliyo aan normal maya inuu daacad noqoto daacadnimo waa sifada sideedaad ninka ragga laga rabo gabadh walbana way ku hamiyaa in ay oday yeelato oday aabba ah gabadh walba waxa ku hamidaa inay yeelato oday aabba ah oo mas'uul ah oo jecel oo wax walba uu qabanaya ilaahay dartii una dan igu jirin walaalayaal maanta tawfiiqda allahna waafajiyo waxaan badannahay mar alla markaan maxaan ku ilaadaa reerkii aan rabno inaan xaajada ka gudano hoostaan ka soo galayna marka kale waxaan leenahay aamus daacadnimo ma waxaas mar walba daacadnimadu waxaa ka mid tahay inaad mar walba aad
درجة أي لا ده هاي مركز أبوها أنت درجة سوكل المهنة سلا سلك درجة أي لا ده مركز ما ده عندي ما كان لنا وإخلاص لوجه الله عز وجل إلهي درتي والله سمين التوفيق الله أنا وفجوا حلبنا صفة سيدات أيها وحوي صفة سيدات وحوي إن ندعت النقن وحول البانو قبنينه لنكشدان لنكنينه الله أكبر سلاسة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ونبري كوناجي الناس ينحريس تاسي وناجا صعبا وأين النقطة سد عدنا ما غير كنا ضاعوا النقطة وحنينا تكقرين المهينا ضاعوا النقطة محاكم هذا وحيا بدن بضع عندي ما دوسوس جلسة وحيسوس جلسة إن أنا بين وشيء وحيسوس جلسة إن العيارتين وحيسوس جلسة إن المركز العيار يسن دني كوجرين سرقة قاركود مركز أي دني وجدته حويه وذا وحكوا لنا يا حبيبي معاك ولا داي معانتو معاك ولا قلنجو وحيلاس ومركب هي وجرت لا أخي وأين نقطة ضاع عندي مد وأين نقطة جوكتو وقتي والبا إن لقاهلو أذكو إلهي با إيجاد مركب الله قلنجو وحن أجيد وحوي إلهي با الريال لقلينيا مركان من بهاي قال الله أبو سود وو مركان الله وحن أصمينا يا وحول الله بارا اللي قلنيه مركان مد ما يشوف جت وحوي نبي جينا صوبان صلوات ربي وسلام على مرك وناقة شيء أن تعبد الله وعباده وحن كجرو غير كوريست وعباده قولي لقديد وعباده حتى قل ماذا يا عباده وحول بوا عباده مركان وحول بوا نقبنينه إن إذا عندما كجرتو إلهي درتي أنا صمينا إنه كجرتو نبي جينا صوبان صلوات ربي وسلام عليه مركو وناقة شيء وحيني أن تعبد الله إن هذه لها عابدين كأنك تراه إن أركيس لك فإن لم تكن تراه أدانا أديك أجيدنا أدأركني إلهي وأكو أركي محمد كانت لقربها وحن لقربها نيم والبا وإلهي مسؤولية دا أديبي وإلهي جل وعلا قرنسيي إن أنا أصمينه إلهي درتي وكان يقصوا عليه وحنو باهنا هاي وحويه إما كذا درسي كما أنت عندك الناي إن أنا نقولنا إنه نكرجع نقدم قف جوجا ما كان جوجا ما قف جوجا أو جوجا أو مركو صوغ أو أجانا يولي هاي أباي أو حقيقة الجوجان عندي أو المهي أن وذ قديني نصادق ويلش أنا أبا كاليا هويو أتى قبلنا ترى أبا كاليا قبله يويلش يا وذا كنتي نوع ما مدينا ترى أبا أديكونا كاليا حبيبتي سوف ديسو يعني نوعا ما نظهر let's show them that we are a father إن نهاي أبو وناكسن يا نهاي مرقا دمشق يقول ده وعيت له I love you كهنسة بيار نيوتي عمل كرناه وعن ما تني أنا إيش عن I love you إن النلانو وكليا جعل كمي بعدو واحد أبهنا إن كشقينه إن أشقينه جعل كي كالجعل كريال كرسميسة شقاه حوق لا نوت على رجعوا إلى هاي توفيق الله لنا وفجوا أنت أسمعت ودرسي أما حوي ودرسي أفراد إيه توفيق الله لنا وفجوا أنا سوس عني وحنا سوق عندنا كي وهري وحوها إن الله كعب سنو طلبات إن الخير كوجع لنا تصدحاتنا إن احترام لني منه تأفرادنا إن كفتني عيار إن لجمع أي نجمع قطو تشنادنا إن نقف عادي أدكتيس ودقية هويني ذا أقوم ومقلي وحيل هذا وأجانية سوى عاونية إن نقولنا تشنادنا وحوينا إن فوجئنا إنه غيرك وحكجري وحصعدي تات ما فهمتي محاكل هذا لحد تي تضبطنا وحوي إن نقولنا أبو ونكسن إن نمثله إن نقولنا talent إن نقولنا skills إن نقولنا محاكل هذا حرفض عن لنا حرفض أبني معه تضبط تسديدنا وحوي إن شاء الله تعالى أن نقولنا وحول بون قبنا إن نقولنا إلهي درتي المخلص أن نقولنا المحاسي ريركاس إلهي إذن إن شاء الله إلهي كسو قارينو درسينا صوص على درسك الشنانة وحنيجتك يا أنت نيجتك نقهر وحنعطسنا يا لايك قرايا سبسكرايب قرايا الله يبارك فيكم دبقين دبق والدين الله عرفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.